مارمين دو هويدي غوري هاو كري وان سو بوخانا هويدي باي نوقتay دو هويدي غوريغي ibtilakuma hooyadii way ku noolaanaysaa waan ogolay kama nafas qaadanayaan hooyadii in hooyadii guriga ku noolaato ma marayo iikaadi inaka adiga ku qaba uma fasax qaadasid in hooyada ay guriga timaado laakiin waxaad rabtaa inuu adiga fasax kaaga qaaday oo ogolaansho hooyadii ana guriga ka masuula laakiin hooyadii inta doonta ku nool walaalahay baa ku noolaanay isaga fasax ugama qaaday kamana masuul ah وحل أويا وحكلا ما وحل أويا ودن كارا كاري إلا أنا كارين بأي ونكسا marka taa hadaanu aniga wiilkiiga maarmeen doo hooyadii guri haw kare waan soo booqana hooyadii bay noqotay doo hooyadii guriga ibtilakuma hooyadii way ku noolaanaysaa waan ogolay kama nafas qaadanayaan hooyadii in hooyadii guriga ku noolaato ma marayo waxaan jeceshahay inuu ku ogolaansho hooyadii kaaga qaado ها هويدي walaalkii haduu mana wada duwan hooyada ayay isaga hooyadii furitaan baba sabab saaba guriga ninka odayka hooyaduna waa marwo muxtaramaho waa hooyadii guriga haday timaado su'aasha qaraabada haday timaado qaraabada dhanka gabadha ka socotana guriga xuquuq bay ku leedahay gaar ahaan haday waalidka yihiin qaraabada xagga ninka ka socotana guriga xuquuq bay ku leeyihiin gaar ahaan haday waalid yihiin ma jirto wax la yiraahdo gabadhuna qaraabadeeda xor weeyaan oo guriga firiibay oo guriga u fasaxay ninka qaraabadiisuna gaar ahaan hooyadii baa la magacaabay guriga marka la keenayo waa in xaaska idan la weydiisto oo haday diidana maamada meel kale loo raadiyo ayu sharcin hada وشرع كفر قال لي ماذا واحد شو شرع كفري ولا شرع إسلام ما هو يدا ما ماذا كوريجا إسكاله نين كذا هو يدي يأبيه كوريجا يدا إذا ويدي سن مايان لأن نين كذا با يجا إسكاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك نبو له لي وحكوا لي أديك يحولها جبا أبها با إذن له هو يدوى كسي حق وينتهي يا هديبا نينك أجيل لي شيء وهو يدي لا ده يا نينك عدي لهي سيبا قولي لو ديدي سقي بابا لي شيء ومد لباده هدي أديك اللف أهانت هذا هو يدا والدك نينكن طلي انت اللي أفقر واي أي كوي لهدان ورياه مدن إنما أنفع يسفر ولو إري marka hooyaan guri u diidi idan hal ay weydiisto guri kale hal loo kireeyo ay sharcin hada أي شرع هذا قرار الجويسنما أنت عليك وحلقها الله هذا هو والد وحلقها الله هذا هو والد واحد قرابك لا حتى هذا الله بعد الشر أهور وإسلام له لكن والدي وجوري قال له ديديو إذا هو يديستين والثقافة هو يدا إنك الرشوم بديدتها مسيل لا هو يدا بديدتها ما هو يدا إنها هسكت شوكتو جوري كذا because وحن ووح السب يا وحن ربنا إلى challenge كان ومارج ويان ووح عاد وعليس بدن ميدا كله أديكو حاجي أو صوش قيي ما أنتودن وح جوري بعد إيمانيسا أنيكو أفكي تاجي why because هو يدا أيان دنيا أما وح نقدر عمري مالنتي you know during the day marka anigu waxaan oranayaa wali hooyada ma ka shaqaysateen ama ma kaaga shaqaysay markii yada la guursaday sidii ahayd iyo sidii guriga loo noolaan jiray ha way waxay tiri sodohyaasha gurigooda ha joogaan horta sodohdu way dib badan tahay run baa fiican in guriga markay ku soo biirto buuq baa ku soo biira way waxyaabo aan banbanaaneen bay wiilka u sheegtaa laakiin soo maaha odagaaga hooyadii Soomaaliya seenad u ixtiraamay in guriga kula waan ixtiraamaya laakiin sodohdayda gurigeeda joogto maxay guriga ka soo doonaysan kana ana la igu qabaa haddeen halkan afafaala iga baxay wax la yiri gabadhu guriga iyada lagu noolaan karo way waxay ila tahay wax dhigtayda ka weyn wax la yiri ishaaduna waa kula da dhigtaaduna waa ka weyn way aniga arrin mushkulada ayay ila tahay kina Soomaalidu waxaan dad isku tiirsan oo
noloshoodu aanay kala maarmino noloshu dad dee qofka wax ay inta kale uu soo gacan qabto ayay ahayd laakiin waxaad moodaa in bulshadu sira bedeshayo waxyaaba kale intayna soo dhex galeen dee aqoontii aynu baranay waa aragnimadii ay keentay inaynu la jaan qaadno dhaqan aynaan lahayn oo kontaga reer galbeed dad kale aynaan lahayn qaabkan loo noolyahay qofku leeyahay kelidii aan noolaado ehel keliya dad kale yaanay imanin caruurtan intan dambe jiilka lama barbaarin waxay tahay sodohdu waxay tahay oo waxay ka siyaaminsan wax qiila qaal oo la yiraahdo sodohdu markasta waa qofkaas soo horjeeda sodohdu qayb ma ka tahay marka burburka qoyska maya boqolkiiba 80 kama aha way dhici kartaa in sodohayada qaar ay si yar fikir kale u aaminsanaadaan waa dadka aan aqoonta lahayn baan oran karaa dalahaan anigu waxaan qabaa in mas'uuliyadda guriga ay intu leedahay wixii xidhiidh iyo waalidnimo waa halkeeda waad ogoshahay hooyada ku dhashay inaad ogolaansho ka Cabdulmaahi bari markay inuu guurso waan la qabaa iyadoo weydiinay oo ogolaanshaha weydiisanaya sodohdii hore iyo sodohda imkiin aan isku mid bahay maxaa farqiga u dhaxeeya waxa uu kala dhaxeeya sodohii hore gabadha way guubaabin jireen inankana way guubaabin jireen waa labadaba de waalid baa loo yahay laakiin imika dambiga u badan wuxuu ka bilaabmayaa sodoha isfahan waa ka dhaca inantan generationkii dambe ah iyo maamadan inankaagii wanaajiyo gurigiisii reerkiisii ka fikir ah un mooye horta waxay xumaynayaan